socdaalka wafdigana uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka galmudug mudane axmed ducaale geelle xaaf ayaa ahaa xoojinta nabadda iyo isdhexgalka waxaana socdaalkan oo ahaa mid luga uu ka soo bilowday gobolka mudug iyadoona ay ku weheliyeen gudoomiye ku-xigeenka baarlamanka galmudug wasiiro duqa degmada gaalkacyo iyo taliyayaasha ciidamada labada dhinac wafdiga madaxweynaha ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey looguna qadakariyey degmada buurtile ee gobolka nugaal gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada buurtile maxamed maxamuud axmed buurdibi iyo qaar ka mid a odayaasha degmada ayaa soo dhoweeyey wafdiga madaxweynaha mudana madaxweyne ku soo dhawow degmada buurtile anoo ka hadlay afka maamulka iyo shacabka guud ahaan aad baan ugu faraxsannahay inaan adigoo lug ku socda ka soo boqolay gobolka mudug noogu yimid degmada buurtile waxaan ku soo dhaweynaynaa gacan furan waxaan ku soo dhaweynaynaa qalbisan waxaan aad ugu faraxsannahay waqtiga qaaliga inaad ku hakatid degmada buurtile runtii farxad weyn bay noo tahay mudana madaxweyne ku soo dhawow degmada buurtile aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa mudana madaxweyne waxaan kugu soo dhaweynaynaa sida gudoomiyaha iyagu u sheegay degmada buurtile aad iyo aad baa reer buurtile iyo reer puntland ba ugu faraxsan yihiin hoggaanka galmudug oo aad haysid intii hoggaanka aad ku soo biirtay magaalada gaalkacyo oo ay iska galaan galmudug iyo puntland waxay noqotay magaalo aad iyo aad u xasilan oo laga dareemay inay dad walaalo ah oo ehel ah oo wax garanaya ay degan yihiin nabadgelyada ka hana qaaday waa kugu bogaadinaynaa safarkay soo galeen iyo kay ku socdaan ma ilaahay waxaan uga baryaynaa nabadgelyo waddanku waa nabad dhibaata ma jirto ilaahay idankii inaad nabad nooga tagtaan nabadna noogu soo noqotaan baan ilaahay ka rajaynaynaa duqa degmada gaalkacyo maxamuud yaasiin tumey ayaa ka warbixiyey socdaalka wafdiga laakiin madaxweynuhu ugu talagalay socdaal nabadeed oo uu rabo dadka soo fiican inuu tuso iyo isdhexgalkii inuu xoojiyo madaxweyne xaaf oo runtii barnaamijka gaalkacyo ama nabadeynta ahaa lafdhawartii ku guulaysatay gaalkacyo nabad ka dhigo dadkana isu keeno saakana wuxuu tusay dadkii oo u soo bareeray waddada rafka inuu soo maro waxaa weeye inuu dadka tuso oo runtii si fiican loo tuso inay nabad buuxdo jirto axmed ducaale geelle xaaf madaxweynaha maamulka galmudug ayaa mahadcelinta soo dhoweynta buurtile kadib sheegay socdaalkiisu inuu ku salaysan yahay fidinta nabaddii iyo isdhexgalkii gobolka mudug ee ay ka wada shaqaynayeen madaxda dowladda puntland isagoona caddeeyey inay wada gaarsiin doonaan guud ahaan gobollada puntland mudana guddoomiye adiga iyo shacabka reer buurtile oo sida fiican noo soo dhoweeyey qadada macaanana siiyey horta marka hore aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa midda labaad waxaa weeye aniga halka maanta waxaan u soo maray nabaddii gaalkacyood baan soo fidinaynay waxaan rabnaa ilaa caluula inaan gaadhsiinno halkaasaan u sii soconnaa ilaahay idankii ilaahay dhib damba naguma keeno nabadda aan ceshanno meel nabadi joogto khayr iyo barwaaqa ka jirta wa kuwaa geedihii waa cagaaran yihiin markii nabaddu timid waagii hore abaar bay ahayd ilaahay maaragtay ha noo badiyo nabadda meel walbana ilaahay nabad ha naga siiyo ummadda soomaaliyeed iyo dadka reer puntland iyo galmudug iyo meel walba waxaan ugu baaqaynaa nabad ayaan leennahay jidka rafkaa iyo waxaasoo dhan waxba naga dhimi maayaan ilaa caluulaan rabnaa inaan sii soconno hadday noo suurta gasho oo aan lug ku tagno oo aan soo aragno dalkeega iyo ummaddayada iyo say ku nooshahay ummaddu anugu oday baan ahay oday soomaaliyeed baan ahay galmudug keliya madaxweyne umaahi ummadda oo dhan ayaan jeclahay inaan maaragtay anugu jidka garowga iyo boosaaso ninkii wax ka dhisay baana enneeda ku taalla boosaaso ninkii dhisay baana haymoodinina nin iska yimid jidkan waxaan maray inta suuxii boosaaso ka soo kacay inaan habeenkii xamar u hoyday waxaan kaloo maray garoowe iyo boosaasoon 3 habeen u sii dhaxay haddana ilaahay iidankii 4 saac baa loo socdaa baa ilaahay iidankii waxaan rajaynaynaa reer buurtile iyo reer puntland oo dhan iyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba ilaahay nabad ha noogu baaqo ilaahu nabad baan kaa barinay ilaahu wixii shira naga xijaab guulaysaajid jaamac warbaahinta dowladda puntland magaalada buurtile